Imaamu Shaafici, Ilaahay ha u naxariistee, ayaa laga qoray in uu yidhi, aqoontu 4 marxalado ayay martaa. Marxaladda ugu horreysa waxaa weeyaan qofku wuxuu isku moodaa in aan laga aqoon badnayn. Qof walba ayuu la doodaa, jaahilka iyo kan wax badan og. Aqoonyahanka, qofkaan asaga la fikir ahayn mooye qof kaleba ma jiro, ayuu aaminayaa. Marxaladda labaad, qofku wuxuu garowsanayaa in uu cilmi badan bartay, laakiin intuu bartay in la eg in ay ka maqan yihiin, wuu sii kororsanayaa aqoon kaloo badan. Marxaladda saddexaad, wuxuu yaqiinsanayaa aqoontu in ay aad u mug weyn tahay, fara badan tahay, intuu fahansan yahay in ay ka badan yihiin inta ka dhiman.